Waa maxay Valentine Day? Maalinta jaceylka 14 February dhanka sharciga iyo asalkeeda waxaa naxdin ah in maalinta dad muslimiin ay xusayaan baadiri Kirishtan geerdiisa iyo waxay caabudi jireen Romankii hore. Waxaan galaynaa meel walbo ay gaaladu galaan, waxaan sameynaynaa wax walbo ay gaaladu sameeyaan, xataa waxaa la galnay cibaadadoodii iyo xuskoodii ay ku weyneynayeen dad ama wax ay caabudi jireen. Asalka Valentine's Day mar walba ay taariikhdu ku beegan tahay 14 February sanad kasta, waxaa dadka gaalada u dabaaldegaan maalin loogu magac daray Valentine's Day ama maalinta jaceylka. Laakiin waxaa isweydiin mudan, kumuu ahaa ninkaas? Maxaa loogu dabaaldegaa maalintaas iyo magaciisa maxaa keenay? Taariikhda Valentine's Day. Nolosha wiilasha iyo gabdhaha waa ay kala fogeed xilligaas. Waxyar ka hor u dabaaldegidda Lupercalia, magacyada gabdhaha Romanka waxaa lagu qori jiray waraaqado, isla markaana waxaa lagu dhejin jiray sabuurad. Wiilasha dhalinyarada ah waxa ay dooran jireen gabdhaha ay rabaan, waxayna haysan jireen inta uu socdo dabaaldegaas. Markaas kadib ayaa laga yaabaa in ay ilmo ka dhashaan oo ay kadib isjeclaadaan ama isguursadaan. Maamulka boqortooyadii la oran jiray Kaldisky waxa uu gali jiray dagaallo dhiig badan ku daato. Boqorkii Kaldisky waxa uu ku dhibanaa inuu helo askari si uu u xoojiyo militarigiisa iyo dagaalada uu galayo, wuxuuna rumaysnaa in aynan nimanka Romanska ay rabin in ay ka tagaan jaceylkooda iyo qoysaskooda. Boqorkii Kaldisky wuxuu ka joojiyay boqortooyadii guurka oo dhan, wuxuuna mamnuucay in la isguursado si ninku uu u yeelan qof uu ku xirnaado. Valentine xilligaas waxa uu ahaa wasiir dhinaca kaniisadaha iyo diinta kana tirsanaa dowladdii Kaldisky. Valentine wuxuu taageeri jiray dhibanayaashii Kirishtaanka ahaa oo loo diiday guurka. Dhowr qofna si qarsoodi ah ayuu iskugu daray. Arrintaa darteed Valentine waa la qabtay, waa la xiray, waana la garaacay, waxaana lagu xukumay daldalaad. Waana lagu fuliyay xukunkii daldalaadda ahaa maalinkii 14aad ee Febraayo sanadkii 270 miilaadiyada. Tan iyo maalinka Masiixiyiinta 14 Febraayo waxay ula baxeen maalinta jaceylka adduunyada. maalinta jacaylka adduunka. horta waa maxay jacayl? jacayl waa dareen ku baraya farxadda waxa ay tahay, isla markaana muujinaya dabeecadaha kuwooda ugu wanaagsan. jacayl waa in ay labadiina ruux kulmaan si ay u noqdaan hal ruux, yacni laba qalbi kulmiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala. inaad qofkaad ku dhahdid 7.5 bilyan qof adiga ayaan kaa doortay. jacayl waa darayeel, ixtiraam, naxariis, farxad, dhoola cadayn, hadal wanaagsan, dulqaad, kalsooni, wax walba weeyaan. jacayl waa in aan u xiiso codkaaga, kaftankaaga, qosolkaaga iyo dhoola cadayntaada, aamusitaankaagana aan fahmo. jacayl waa marka ay noqoto farxadaada farxadeeda, murugtaada murugteeda, dhibaatadaada dhibaatadeeda, xanuunkaagana xanuunkeyga. jacayl waa midka kuu dhoweynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala, ku baraya jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala, qofkaasna kuu ducaynaya adigoo aanan ogeyn. jacayl waa marka nebiga sallallahu alayhi wasallam uu ilmeeyay xiisitaan uu u xiisay xaaskiisa Khadiija. jacayl waa nabi sallam markuu arkay xaaskiisa Safiya ilmeynaysa aaday gacmihiisa ugu tirtiray ilintaadii. jacayl waa marka nabi sallam la weydiiyey dadkayaad ugu jeceshahay, dhahay asigoo kufaanaya waxaan ugu jeclahay waxay tahay xaaskeyga Caaisha. jacayl waa nabi sallam oo gurigiisa ka soo baxaya maalin walba iyo mar walba shuminaya dhunkanaya xaaskiisa. haddaba waa goorma maalinta jacaylka? waa shalay, maanta iyo berito. maalin walba noloshadan ayay ku dhisan tahay, maalin walba iyo saacad walbana ayaad u baahan tahay. sidaa oo dhan hadday u qurux badan tahay, waa maxay sababtaan ugu soo koobaynaa hal maalin? ku noolow maalin walba jacayl, ku noolow maalin walba jacayl.
fadlan haddaan nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid